dhalinyarada oo runtii isku duubnaata oo isgarabsata oo samaysa kacdoon oo kelidiisa waxaan oo qabiilka tuuraan quranka tuuraan oo isku mind noqdaan isku maskax isku fikrad isku ra'yi oo is aruursada samaysta maxaa sanduuq dhaqaalo hataa kii marka shilin ku ridi kara kii 2 shilin ku ridi 3 shilin ku rido dad aamin loo dhiibo kadib la sameeyo investments lagu sameeyo gobolka horumar laga sameeyo dadkii waa gelin la baraarujiyo odayaashan la tusin dadka shacabkina waxay ahayn wax u haynin odayaashii ayaga markaas ayaga xishoon doon iska bixi doon markii wax lagu sameeyo ilaa waxa qofka waxa waa yeel tag la miraade wuxuu ku tagaa la tusaa waa sheekada faanta la tuso waxay ku tagaan dadka ma iska fadhiya markuu cunugu adeerku yahay uu ka soo horjeeso ilaa aabo I'm new generation I'm fresh mind makuda you common minds makuda get away makuda oo qofkii uu ku tufo oo yala hada oo dhinac iskiga leexay get away from my face makuda yeah I want to receive I want to reach on top makuda oo qofkii dhinac iskiga tuuro odayga saaxishoonay wala Allah ilmiya noo soo dirnay bismillah ilmiya madax saliid ma marin jirnay afku saliid ma jira afku ma jirnay ay in khabad noo soo makuda markaas odayga saabiska xishoon doona marka waxaan la hadlaa especially dhalinyarada kuwa markina maskaxda fiyo leh aan qabiilka la tagin aan quranka la tagin qalbigooda nadiif ka yahay ayaan la hadlayaa waxa bartay aqoonyanada inaad aqoontiina dadka ugu faa'iideysan gobolka investments ku sameeysan maalgashataan kuwa dibadaha jooga kuwa dalka jooga iska warqabo maxaa la yiraahdaa dadkan iska leexiyo odayaashan hortaagan dhinac iska leexiyo oo marka ma sha Allah oo gobolkaas oo mar la gaarsiiyo waxaan talin lahaa oo markaas aayihiisa mustaqbalkiisa dadka ka talin lahaa inay idinka tiin oo inaad iska dhaadhicisaan dadka horumar gaarsiin lahaa runtii dhaqaalaha maanta gobolka Shabeellaha lagu tuhmaayo runtii waa dhaqaale aad u xoog badan waxay haystaan resource badan haystaan ila badan dhaqaale ay haystaan runtii waxaa maqlay balaya iyadoo dacad laga dhahay meelaha shidaalka laga helay badda laga helay shidaalka waxa waa gobolada laga helay waxa koonfur galbeed Jubbaland galmudug ayaa ugu horeysa laga baaray koonfur galbeed marka uu soo laabto meesha koonfur galbeed bay bad kuma taalo bakool runtii bad kuma taalo badda shidaalka laga helay halkii ku taala ishay badda shidaalka laga helay waxay ku taalaa gobolka Shabeellaha Lower Shabeelle ayay ku taalaa waa xeebtaan dhirka badan oo Ilaahay ku maneystay oo khayraadka dabiiciga ka buuxo oo ka bilaawata xeebtaan jasiira ka bilaawato oo dulmarta marka baraha dulmarto ilaa dhulkaas Kismaayo gashay iska moolkaas gashay waa meesha shidaalka lagu sheegay meeshaasna oo koonfur galbeed ay sheeganayso leeshada laga leedahay waa gobolka Shabeellaha maahan baayay bakool runtii la soo sheegay ma fahanti maahan baayay bakool hadhowtii markii shidaalkaas la qodo anaga waxa laga yaabaa inaan dhiman aan ku soo gaarin laakiin waxa uu hadlayaa generation naga dambeeyo jiilka naga dambeeyo oo anaga aan dhali doono ama dhalan doono ama hadda soo dhashtay oo mustaqbalkaas janiskaas heli doono ayaa waxaan la hadlayaa dadaan u sheegay waxa waaye dadkaas ayaa la rabaa in lagu cariiriyo maxaa la yiraahdaa sharing code in lagu cariiriyo oo qarsan qalooc lagu rido oo la yiraahdaa koonfur galbeed tihiin oo ka tirsan tihiin maxaa la yiraahdaa saswaay bawsheek maamulka loo soo qaaday yiraahdo oo gobolkooda Shabeellaha aan investments lagu sameeynin ama development lagu sameeynin oo hadhowtii markaas oo lagu sameeyo baay iyo bakool xaq u leh lagu sameeyo runtii waa wax aad nasiib dare taas waxaan ka dhignayaa taas aan rabaa in dadka baraarujiyo waa taas marka fiir dhaqaalaha hadii la dhaho hadii la baay bakool beeraha ku yaal okay ani waan tii waa soo arkay Lucas bakool horta waa soo arkay horta bakool iyo gedo wax isma dhaamaan waa lagu darleeyo meel ka baxay waay I'm sorry inaan caayo dhul Soomaaliyeed oo dad muslimiin ah I'm sorry waa ka xumaay laakiin reality ayaan ka hadlayaa marka run sheegaysid waxa la qofkaan run sheegay been ayaa u qarsan idaan Soomaaliya u kaadsan marka taas way waxaan ka hadlayaa dhul oo agriculture ku fiican
ma ahan oo saas oo marka ayaan ka wadaa taas bay ayaa xogaho maxaa haasato yani agriculture haasato beeriyo haasato laakiin haasato maxuma never mind laakiin ma garta beeraha Shabeellaha ku yaalo iyo kheyraadka Shabeellaha ka soo baxayo bay bakool ma garta ma haysata inta beer ku taal ma haysata Shabeellaha waxa ka baxo qudaar ka baxdo markaad waxa ka baxdo mix of vegetables ayaa ka baxdo oo different sizes leh ayaa ka baxdo waxa ka baxdo haruura ka baxo sida galeyga waxyaabo badan ayaa ka baxo xoolo geel ay haysata oo ku badan lagu tumo oo ilaa muqshimeelka sala keena xoolaas oo lagu cuno lagu qalo lagu kala keena ari hasta lo xolbi hasta beeri hasta wali hasta badi hasta oo ka soo bilaaw min baraawe soo dulmar ku sablaale soo dulmar ku tuwaare soo dulmar maxaa la yiraahdaa qaryoole farsool ukaas soo dulmar alfuuto soo dulmar maxaa la yiraahdaa soo dulmar tuwaare soo dulmar oo qaryoole soo gal oo janaala soo mar gaabaro soo mar oo soo socshana bood soo mar oo soo mar maxaa la yiraahdaa laanta boor soo mar laba konton soo mar oo tortoro soo mar afgooy soo mar walaweyn soo mar oo yaqbir weyn soo mar oo maxaa la yiraahdaa Allah musta'an warmaxa soo mar dhulkaas oo ku soo wareeg waa dhul dooge waa dhul oo daaqna leh beerana leh wax walbana leh oo kheyraadkaas ilaahay faraba ilaahay siistay oo maanta qudaartii wixii lagu abuur wax kasta oo hore ka soo dhalnayeen oo qudaarta maanta meel kasta loo qaado oo la geeyo ilaa gobolada dhexe la geeyo ilaa Boosaaso ilaa Hargeysa loo dhoofiyo ilaa dhulkaas adduunyada loo wada dhoofiyo ilaa Muqdisho loo dhoofiyo waxa way waa Shabeellaha ka soo baxdaa majority inta ugu badan iyo gobolka labaadna uu yahay Hiiraan maanta oo qudaarta laga soo dhoofiyo idan ay tahay qudaarta ka soo baxdo laakiin number 1 waa gobolka Shabeellaha marka reality laga hadlo ayadoo saas ay tahay maanta caanaha lagu cabayo Muqdisho waxa laga keenaa Shabeellaha waxa soo dhan ayadoo intaas dhaqaale kulbisatay maxaa yiraahdaa taxes laga qaado islaantaas caanaha dusha ku wada geelkeeda ama loodeeda arigeeda ka soo maashay cashuurta lagu soo qaado gobolka Shabeellaha waxa markii Muqdisho keenta laga qaado cashuurtaas dib ugu laabato gobolkii investment lagu sameeyo ayadoo wax lagu qabto caafimaad lagu qabto hospital lagu sameeyo cunugeeda miskiinka u rafaadayso lagu sameeyo school lagu sameeyo wax oo ay dan ugu jir lagu sameeyo oo laba oday ku jab ku shubtaan iyo laba qof ilaahay ka baqaya jab ku shubto oo daara ka dhistaan ayadana ma isku faadsan tahay hadii fatahaada dhacdana dadka ugu hore ayadu qaadaya xarunteeda qaadaya ayada wadada ka go'aysa baawar ma hasan dul mari karto cagaaf ma hasan mari karto marka waa wax aad nasiib dareen waxaasna waa wax sun xaraan xoolaas la cunaay anadkii wax loo qabanin marka waxaan dhiilahay ha laga dhiidiyo hala garab istaaga kacdoonka hadda socdo oo rumuudka ka yahay walaalkeena aqoonyahan mudane Sayyid Ali Haadi ilaahay khayr si ajaa xasan Allah ka sii horumarka uu sameynayo runtii aadan ugu bogaadinayaa ma sha Allah I'm appreciating I'm really proud of him marka insha Allah waxaan ku leeyahay hoosh meesha ka sii wad insha Allah never give up insha Allah marka waxaan ku leeyahay insha Allah hili hol waxaan anaga insha Allah awoodna ku garab istaagana insha Allah walaynagana waxaan leeyahay ku soo beera horumarkan insha Allah kacdoonkan iyo xurnimo raadis ayaan leeyahay waa xurnimo gobolka Shabeellaha because xurmaan waliis xurmo noqon dadka xureen lahay anaga waa dhalinyarada oo jiilkeena waay maahan in xurmad marka ku dhahay inaan qori qaadano dhiig islaameed galno dad dilna maahan no I will never tell that shit weligay ma dhahay waxaan rabaa baan ku maan tubkaas in laga dhigo oo peace nabadgelyo oo qalinka lagu adeegto oo waxbarashada aqoonta lagu adeegto ayaan rabaa aniga oo investments la sameeyo dhinac walba leh ayaan rabaa kuma talinaay in qori qaad dagaal iyo colaad hore kuma talinaay laakiin waxaan ku talinayaa in miiska la soo wada fadhiisto oo dhibka la tabanayo la istuso oo garta la naqsado oo markaas loo tashto qof walba ay soo tashto oo markaan dadkan shacabkan duuba masaakiinta maxaa u wanaagsan masiirkooda wuxuu ku dambeyn doonaa ma wanaag ma xumaan maxaa waaye tuugada laga fikiro laga hadlo laga dhiidiyo dulmi lagu waayo
waxaan ka hadlayo ayadoona cid la colaadinaynin ayadoona qof la dagaalaynin meesha awood ma jirto shalay dadkan ayaa wax isku darsaday runtii dee laga hadlo qof ma jiro hal col hal iskala soo baxay ma jiro waxaan lagu dhahay waxaan waa power sharing runta hadaa ka hadla reality ma fahamtay waxaana waa power sharing marka power sharingkiina wuxuu ku yimaadaa heshiis iyo isfaham iyo afgarad uu ku yimaadaa haddii la isfaham waa la heshiin waayo marka qof uu la fahmi karo inuu wax ku darsado shalay qof wax fahmi karo wax ku darsado soma maantana haddii isfaham in la kala tago qof wax ku darsan karo lagu darsado ayaan anigu ku talin lahaa marka insha allahu tacaala wixii soo kordhana waa isla socon doonaa insha allah more information insha allah soo kordhana insha allah we gonna tell you insha allah as soon as possible as we can insha allah inta ka horeyso waxaa idin leeyahay peace out. Assalamu alaikum wa rahmatullahi